صحفي محمد عبد الله فرح oo ka howlgeli jiray telefishinka caalamiga ah ee Somali Channel iyo website-ka Berbera Today oo muddo 6 casho u xidhnaa qoraal la geliyay website-ka Berbera Today ayaa maanta xilli dambe la sii daayay. Suxufiga ayaa haddaba markii saaka jeelka laga sii daayay waxa uu la hadlay saxaafadda waxaanu si weyn ugu mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay sii deyntiisa waxaana iska fogeeyay eedeynta ah qoraalkaasi oo uu sheegay in mulkiilaha website-kaasi uu isagu qoraalkaasi geliyay isaguna uu ku xidhnaa sharci daro maadaama mulkiilaha website-ku uu isagu raaligelin ka bixiyay qoraalka qaldan ee uu geliyay. waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay soo deynta xarigaygii cadaalad darrada ahaa ama cid kasta oo ka xumaatay xarigii cadaalad darrada ahaa ee lagula kacay. waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa bahda saxaafadda ee Somaliland ta gobolka saaxil gaar ahaan oo warkayga meel kasta gaarsiiyay muddadii aan xidhnaa aadna ugu dhaqaaqayay xorriyaddeeda xuquuqdeeda. waxaan marka labaad iyagana u mahadnaqayaa ciidamada asluubta ee xabsiga Berbera oo meel wanaagsan dejiyay si wanaagsan ay la dhaqmay. waxa kale oo iyagana u mahadnaqayaa dad badan oo mas'uuliyiin iyo madax iyo cid kasta isugu jira oo xarigayga cadaalad darrada si xun uga damqaday aadna uga howlgalay. oo mahadsantiin cid kasta oo ka qayb qaadatay soo deyntayda. intaas ayaan hadalkaygu soo koobaya. عدالة